Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan. Maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeeni taxanaha inoo ahay. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah dowladaha Islaamka ee ugu quwadda weyn taariikhda. Mid kalena ma ahane waa dowladda Turkiga. Turkiga sida dowliga ay loo yaqaan waa Jamhuuriyadda Turkiga. Waa wadan aad u ballaaran waxaana uu ku yaalaa laba qaaradood ee qaaradda Asia iyo qaaradda Yurub. Turkiga waxa uu xuduud la leeyahay Georgia, Iran, Armenia iyo Azerbaijan. Dhinaca bari ee dhanka koonfureed waxa uu xuduud ka leeyahay dalka Ciraaq iyo Suuriya, iyo badda dhexe dhinaca galbeed waxaa ka xiga wadan Greek iyo wadanka Bulgaria iyo badda loo yaqaan Aegean. Dhinaca waqooyi waxaa ka xiga badda Madow. Waxa uu Turkigu ka mid yahay mid ay maamusho dowladdii ee hore u maamuli jirtay dowladdii Cusmaaniyiinta ee 1922 la dhisay. Markaas oo la sameeyay dowladda Turkiga ee maanta naqaano dowladda Turkiga ee maanta naqaano inta ay 1922 la dhisay. Markaas oo la sameeyay dowladda Turkiga ee maanta naqaano dowladdaas uu sameeyay ninkii la oran jiray Allah u naxariistay Mustafa Kemal Atatürk. Sidoo kale magaca Turkiga xagee ayuu ka yimaadaa asalkiisa? Magaca Turkiga waxa uu ka soo jeedaa laba kelmadood oo la isdul saaray oo kala ah Turki oo ka timid kelmadda shacab weynaha iyo oo ka hadlaysa waxeena, markaas uu macnuhu noqonayo Turkiyadeena. Sidoo kale xagee ayuu ka yimaadaa magaca Turkiga xagee ayuu ka yimaadaa asalkiisa? Magaca Turkiga oo ka soo jeedaa laba kelmadood oo la isdul saaray ka timid kelmadda shacab weynaha iyo oo ka hadlaysa waxeena, markaas uu macnuhu noqonayo Turkiyadeena. Taariikh ahaan wadanka Turkiga intii ka horeysay sanadkii 1922 waxaa maamulisay dowladda Cusmaaniyiinta. Kadib markii ay burburtay dowladdii Suluqiyiinta waxaa sameysmay dowladdii Cusmaaniyiinta. iyadana dowladda Cusmaaniyiinta mar kale oo barnaamijka ugu awoodda badnaa ee hore u jiray. Rabitaanka Turkiga waxaan maqalnaa mar walba nagu maqaal ah. Rabitaanka Turkiga waxa uu ku doonayaa inuu ku biro midowga Yurub iyo mustaqbalka Qubrus. Kadib markii bishii hore lagu guuldareystay afti lagu mideyn lahaa ayaa waxaa laga yaabaa inay ugu waaweyn yihiin waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan isbuuca soo socda ee madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan booqan doono Greek. Khilaaf xaguu ka imaan karaa? Dadka Turkiga waxaa loo yaqaanaa Turki. Xukunka waxaa haya dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan. Baarlamaan dastuuri jamhuuriyad weeye. Madaxweynaha waa Rajab Tayyip Erdogan. Ra'iisul wasaaraha waa Bin Ali Yildirim. Gudoomiyaha baarlamaanka waxaa weeye Ismaaciil Kahramaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare waa Hasim Kilik. Sharci dejinta wadanka waxaa haya baarlamaanka. Turkiga waxa uu ka mid yahay dowladihii ugu awoodda badnaa ee hore u jiray. Rabitaanka Turkiga waxaan maqalnaa mar walba nagu maqaal ah. Rabitaanka Turkiga waxa uu ku doonayaa inuu ku biro midowga Yurub iyo mustaqbalka Qubrus. Kadib markii bishii hore lagu guuldareystay afti lagu maqalnaa mar walba nagu maqaal ah. Rabitaanka Turkiga waxa uu ku doonayaa inuu ku biro midowga Yurub iyo mustaqbalka Qubrus. Kadib markii bishii hore lagu guuldareystay afti lagu mideyn lahaa ayaa waxaa laga yaabaa inay ugu waaweyn yihiin waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan isbuuca soo socda ee madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan booqan doono Greek. Khilaaf xaguu ka imaan karaa? Asalaano kale waa ka jara dhib malahane. Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan. Maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeeni taxanaha inoo ahay. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah dowladaha Islaamka ee ugu quwadda weyn taariikhda. Mid kalena ma ahane waa dowladda Turkiga. Turkiga sida dowliga ay loo yaqaan waa Jamhuuriyadda Turkiga. Waa wadan aad u ballaaran waxaana uu ku yaalaa laba qaaradood ee qaaradda Asia iyo qaaradda